wuxuu soo galay bangi isagoo doonaya in la deymiyo lacag gaadhaysa $10,000 balse sida uu filayay ma aysan noqon ay u diideen lacagtii. Isna wuxuuba noqday 18 sano kadib ninka iska leh bangigii looga diiday lacagta. Waa arrin la yaab leh. Doo sidee ayuu ku noqday, sidee ayuu ku gaadhay sidaas, maxaase ka dambeeyay inuu maamulo bangigii lacagta looga diiday? Inta aanan bilaabanin muuqaalkan, fadlan like saar, sidoo kale channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxay ahayd 2002 markii uu damcay inuu bilaabo ganacsi, balse awood uma uusan lahayn inuu bilaabo ganacsigaasi. Sidoo kale wuxuu sheegay inuusan haysan wax lacag ah. Iyada oo sidaas ay tahay, wuxuu u jihaystay oo uu aaday bangi lagu magacaabo RBS oo loo soo gaabiyey The Royal Bank of Scotland. Wuxuu soo bandhigay arrintiisa, wuxuuna ka codsaday lacag gaadhaysa $10,000 balse waa ay ka diideen in ay lacag siiyaan iyagoo leh uma aamini karno, sidoo kale leh da'daadu way yar tahay. Kadib markii uu arkay Adam Dewin in aysan tixgelinaynin codsigiisa oo aysan u jeedin, wuxuu ka qaatay go'aan, wuxuuna bilaabay shaqo xirfadeedkiisa isagoo oo aaminsan naftiisa oo ku kalsoon. Laga soo bilaabo 2002 ilaa haatan 2020, wuxuu sameeyay isbeddel aad u weyn. waxaana ka soo wareegtay 18 sano. wuxuuna iibsaday bangiga lagu magacaabo RBS, waana bangigii deynta looga diiday 18 sano ka hor. wuxuuna iibsaday sanadkan ee 2020. haddaba daawade oo ku mahadsan tahay daawashada daawatay muuqaalkan. haddii aad ka heshay like saar, sidoo kalena haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar. mahadsanid. waa inoo muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.